walaalmay waa khalad waa dad Soomaaliyeed in magaalada laga saarno waa khalad madaxweynuhu taa uu ku khaldan yahay dib ugu noqon lahayd waa khalad wallahi khalad aad weyn baan u arkaa waayo dad aynu isku Soomaalinahay isku diinnahay isku dhaqan bila aadan markaad wax jeebkaaga soo galaan qof miskiin ah oo isaga bariiskiisa la yaabano halkiisiiba joog lahayd uu xiliyo qofkani uu kaaga maqnaado waxa la dadka ku taxadii kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena rayga dadweynaha oo toddobaadkiiba hal mar la dhex qaadno shacabinaha magaalada Burco sida ay u arkaan hadba su'aasha ay laabta ku hayaan bulshada haddaba caawa su'aashan weydiin doona ayaa ah maxay reer Burco ma sax waa in laga saaro dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya magaalada Laascaanood daawasho wanaagsan baan ku soo dhawaada magaca ku bilaabay magacaygu waa Yaasiin Xasan waayahay Yaasiin ma sax baa dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood walaal waa sax waan ku taageersan in la saaro hal raaf waxa iska rogo dabada loo soo walaal waayahay aad ma santaa ku soo dhawaada magaca ku bilaabay wandhow walaal magacaygu waa Jamaal waayahay Jamaal ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood horta waxa ku weydiiyay horta dee fikrad fiican oo waxaad nin walba fikradiisu dhiibanaya Muuse Biix Cabdi maalintu dalka yimi ku shilmayn siilaanyo horta ninka ma baranba siilaanyo dhowr sharafka naga soo gudbiyay xafladii wax ninka horta ku bartay waa qodobka labaad dee bila aadan markaad wax jeebkaaga soo galaan qof miskiin ah oo isaga bariiskiisa la yaabano halkiisiiba joog lahayd uu xiliyo qofkani uu kaaga maqnaado waxa la dadka ku taxadiin ilaahay baa ku arko aakhira lagu geeyay kafan cad baa waxaan ka raacaysay Muusow sida tahay dugaagii marbar ruux eriyanayo tii annaga kula yaabanayne annaga cidna xidhmaysay waxaanu ku sheegaynaa adeer gacali dadka ku gafin meeshan annaga ku dhiibinay sanad baa ku haray inta annaga dadka ku soo guraynaba tan marka adeer wadan Soomaaliyeed shahaadadu sitee ku dhoofo Muuse Biixi Soomaali baa ku qoran tee fakarkan u salaamsay dadka ku caawantay adeer gacali bila lacagta nagu wartay annaga waxaan bar hore tagi lahayn aad baan ku soo dhawaada magaca ku bilaabay waa wandhow aniga waxa la dhahayaa Maxamed Cali waayahay ayaana ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood walaalmay waa khalad waa dad Soomaaliyeed in magaalada laga saarno waa khalad madaxweynuhu taa uu ku khaldan yahay dib ugu noqon lahayd waa khalad inagana dad baa inaga jira inagana wana la jooga marka dadka Soomaaliyeed in wada joogaan way caadiya iska wada joogaan baan leeyahay magaca ku bilaabay magacaygu waa Cawl Umar Asfaan waayahay Cawilow ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood wallahi sax ma aha waan ku soo horjeednaa go'aankaasna waa go'aan degdeg oo khalad la qaatay kullu madaxweynuhu dashadiisa waa dhamaad waddankan ku sii galgalanayaan waxaan leenahay maxay tahay madaxweynuhu sidan wax ka bedelo kurma raacsan anigaas waayahay aad u mahadsantahay magaca ku bilaabay magacaygu waa Najaxay waayahay Najaxay ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro Laascaanood walaal qof walba meesha uu dhashay ku noqonaya kulli jeen yarti cilaaslihi tan waa xayskale Soomaaliland anaguna dad Soomaaliland darina ma nahay ma doonayna dadka qalalaasaha ku wada Laascaanood ee agagaarkeeda ku soo dhawaada magaca ku bilaabay aad baan u dhahay walaal magacaygu waa Farax waayahay Faraxay ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood walaal may arintaan ugu khalad baan u arkaa way dad Soomaaliyeed bay nahay ummad Soomaaliyeed bay nahay diin iyo afba way naga dhaxeeya marka ra'yiga anigu iyo dadkaas laga saaray qalalaasa maanta iyadoo Soomaali meel qalalaasa ka jira aan jirin lagu kiciyo khalad baan u arkaa aad u weyn waanan cambaaraynayaa aad ma santahay shuruunada magaca ku bilaabay walaal magacaygu waa Cabdinaasir Xasan waayahay Cabdinaasirow ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood waa khalad wallahi khalad aad weyn baan u arkaa waayo dad aynu isku Soomaalinahay isku diinnahay isku dhaqannahay xaggaana inaga dad bay noo jooga marka dadkii xagga ku xadgudubnay waddanka ka saarno inagana kuweenaas laba dhawl harag laga saaray marka waa khalad aad u weyn weeyaan xaggaaba inaga dad bay noo jooga dadkeenaas la leenayaa hadii inaga dadka kala aan dhibnay aad baan ku soo dhawaada magaca ku bilaabay magacaygu waa Maxamed Garaad Cabdirashiid waayahay Garaadow ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood may walaalden kelmad taa ma arko wax wanaagsan ma arko talaabada in dawladda ka fiirsato way dadku markaa dad Soomaaliyeed bay ahayn abaar iyo ma garanaysaa dhibaatiyo nabad la'aan dalkooda ka timayahay oo dalkeena inoo marti inoogu haayeen martiduna marka martida garanaysaa marti ku yihiin wala wanaashiyaa lama garanaysaa lama tooro lama fogeeyo hadii laga saaray in si yar haba ma garanaysaa marka la soo habeeyo waxooda dhaqaalahooda iyo adduunkooda wax la raro oo dawladooda looga celiyaa bay ahayd laakiin sida degdeg ah in dawladdu ma garanaysaa talaabada ku dhaqaaqmay ahayn aad ma ku soo dhawaada magaca ku bilaabay waxa la yiraahdaa Sagal Maxamed Aadan waayahay Sagalay ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood waa sax waan taageersanayaan maxay tahay sababaha ku taageertay go'aanka ajnabi godan haleenaga saaro macal xabashida cid walba waayahay aad ma ku soo dhawaada magaca ku bilaabay walaal magacay waa Sidam Saciid Sidam Bararje
waayahay baraarujiyow ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood waa sax maaha arrintaas sax maaha way ku khaldantay dawladuna inay dad muwaadino Soomaaliyeed inay ka saarto Soomaaliland waayo ummadda reer Soomaaliland iyagoo meel walba qaxoontiyo ku yihiin Soomaaliya qaar baa qaxoontiyo jooga qaar baa meel walba jooga marka khalad weeye inay ka saaraan dadka Soomaaliyeed waayo imika qoomiyada kamid ah dadka Soomaaliyeed ayaa la mid Korea haday dalalka kala tagaan imika waxaan arkay darawaladii gaadiidka wado xagaas iyagana xirxireen marka khalad weeye arrintaas Muuse ku dhawaaqay wasaguna ka dambeeyo balse laakiin dadkaasi in dadka Soomaaliyeed la kala sooco ma fiicna waayo dadka Soomaaliyeed meel walba iyagu qaxoontiyo ku yihiin kiisale tolada Laascaanood jooga Bartolaha Muqdisho jooga aad baan ku shirwanaad adigu magacaaga ku bilaabaya walaal wad mahadsan tahay magacaygu ayaan waayahay ayaanay ma saxba in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood horta anu taas khalad baan arkaa madaxweynahana oo ku dhaliilaya sababta ugu dhaliilayna waxay tahay dad 27 sano meeshoodii deganaa oo loo hooyooyineen dibadda loo qubo oo gawaadhi ku dhaxumulaan oo ka soo horjeeda dawladana ku dhaleecaynay dib isku noqdaan leeyahay markii hore mala waxa inta khaldanaay aad baa ku soo dhawaanay adigu magacaaga ku bilaabaya wandhaga wala magacaygu waa Najax waayahay Najaxay ma sax baa in dadka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda bartamaha Soomaaliya in laga saaro magaalada Laascaanood maya waa khalad صح معها دد الشعب وماشي دجنين تاسو سنة دد بدن بشيء حتى عرورته دي لا وحنا لا حتى دي لقى سعرية وقت اللي وقبته وسياس القصارى ويا عاد بكسر من هذا المجاعة قبل أبيه وندوي ولا المجاعة ويفرح عبد الرحمن نواي هي إفراحي مصحبة إن تتكا الصومالية كسر كذا برتمع الصومالية إلا كسر مجال Laascaanood ما ولا لا نقول ما أركو صح إني خلدن تايبان وأركا وحلي مدح لفتي جودنا تبي جالس كوكو نقطة إذا بالجودي هنا تبي سايقن لي أضمن واي هي أضمن كسر من هذا المجاعة قبل أبيه magacaygu Muxidiin Cabdi واي هي محيدين ومصحبة إن تتكا الصومالية كسر كذا برتمع الصومالية إلا كسر Laascaanood qof waliba horta meeshuu dhashay in uu la geeyo horta waa canta marka hore marka dadka Laascaanood laga saaray anigu waxaan leeyahay dalkoodii la geeyo beerahooda hadda iska fushaan iyagaaba waxaan ku wada marwaaqo ka yimid marka inta kale hadhayna si degdeg ah looga saaro kuwaasi waxay hayeen shacabweynaha magaalada Burco oo dareenkooda ka dhiibanayay dadka Soomaaliyeed ee laga saarayay magaalada Laascaanood tan iyo inta barnaamijka la mid ku kulmi doono waxaan iskaga tagnaa sida iyo nabadgelyo